bismillaahi raxmaani raxiim waxaanoo wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwadii ugu dambeeyay oo hadahan oo kale ka daawataan page-kan iyo YouTube-ka labadoodaba muuqaal wareedka intuu soconayo adweebaydna waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan xiisada Turkiga iyo Yahuudda Israa'iil oo cirka isku shareertay kadib maxaa la filayaa miyuu dagaal dhex mari doonaa labadooda mise waa waanta imika socota oo diblomaasiyadeed ayaa arinta hoos loogu dhigi doonaa waa 5 bisha shanaad 2026 macluumaadkaas oo faahfaahsan intaana ku soo gudbin fadlan muuqaalka leega saaro share garay oo u geey cidda doonaysa inay macluumaadka Turkiga iyo Yahuudda Israa'iil ka dhaxeeya iyo halkii konfliktiga labada u dhaxeeya ka soo bilowday doonaya inuu wax ka ogaado aynu ku bilownay saaxiibayaal xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dawladaha Turkiga iyo Yahuudda Israa'iil ayaa heerkii ugu sareeyay gaaray sanadii ugu dambeeyay iyadoo ay sii kordhayso cabsi laga qabo xiisadu inay isku bedesho dagaal isku dhac oo military oo labada dal ayaa 3 sano ee la soo dhaafay si tartiib ah u sii kala fogaanayay dhinacyada siyaasadda iyo amniga sidoo kale wada hadallada kulul oo hogaamiyaasha isku dhaafsanayeen warbaahinta ayaa iyaduna noqotay mid sii murjinaysa xagga labadooda ee xiriirka dhanka kale ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa 11 Abriil si kulul u weeraray madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan isagoo ku eedeeyay inuu taageero siiyo kooxa uu ku tilmaamay maamulka Iran ay gadaal ka riixayso isla markaana cadaadis ku haya dadka Kurdiyiinta waa sida warka u dhigay dhanka kale Erdogan isaga laftigiisa ayaa 15 Abriil isagana khudbad uu ka jeediyay Yahuudda Israa'iil ku eedeeyay una sheegay in ay inay iska indhatirayaan waxa ka dhacay magaalada Gaza isla markaana ay isku dayayaan inay faragelin abni ay ku sameeyaan dalweynaha Turkiga isagoo ku eedeeyay arrimahaas Kurdiyiinta iyagoo ku marmarsiinaya waa sida marmarsiyo uga dhiganaya suwarka u dhigay hadalladan isdhaafsiga ee sare u sii qaaday xiisada iyadoo dhinacyadu ay si toos ah isugu weerarayaan dhanka warbaahinta iyo masraxyada adduunka ee siyaasadda falanqeeyaasha warbaahinta caalamka ayaa sheegay in khatar isku dhac oo military ay sii kordhayso hadallada hogaamiyaasha inkastoo labada dal ay weli wadaan wada hadallo diblomaasiyadeed oo lagu xakameynayo xiisada u dhaxaysa Yahuudda Israa'iil iyo Ankara ayaa waxay soo bilaabatay kadib weerarkii Hamas ee dhacay 7 Oktoobar 2023 iyo jawaabtii xooganeed ee Yahuudda Israa'iil ay ka fulisay marinka Gaza taasi dhinaca kale Turkiga ayaa si cad u cambaariyay howlgallada Israa'iil ay ka wado Gaza iyagoo ku tilmaamay xasuuq ka dhan ah shacabka Falastiiniyiinta halka Yahuudda Israa'iil ay Ankara iyaduna ay ku eedeysay inay garab siinayso kooxaha ka soo horjeeda Yahuudda oo ula jeedo Hamas dhanka kale Ankara ayaa qaaday tallaabooyin dhaqdhaqaaq oo ka dhan Yahuudda Israa'iil iyada oo ku dhawaaqday in ay joojisay ganacsigii kala dhaxeeyay Yahuudda Israa'iil arintaas ayaa sii xoojisay khilaafka u dhaxeeya labada dal waxyaalihii dambe saaxiibayaal ka soo cusbanaada muuqaalada kale ayaynu iskala daawan doonaa fadlan muuqaalkan leega saar oo share garay haddii YouTube-ka iyo adiga daawanayso dhinaca kale warbaahinta ee Facebook labadaba muuqaalka leega saar oo geey dadka u baahan intaan ku kulmi doono macluumaadkan iyo macluumaad kale oo soo cusbanaada labadan dal